ودوه خضر رواد السلام كلين ودوه يود ما سنتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واختيارنا كجيران راه بلسو قال وحير شير قري أنا بس لا يعني سوق واتري ولي ما أنا هلنا هذاك سوق هذا محل توبك بعد نوب الله بالهيد شير قري أوكي دواء الشير قري وتسوي سنة واندين شوقاي وحيالات غريسان وفاني ويا غاركين شرقرية وايها شرقرية وان سوق وان بسودين بقول بنسوها يا بقول لعية توبا دمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلام دمانتين نبا وحيد بالي هبل واحد وقت مكوش هذا waxaan ka hadlayno waa waxaan ognahay laakiin waxyaalo badan oo aydan ogeyn baan rabaa inaan idinku daro calaykum salaam anisi waa ku salaam maanta nin meesha wuxuu isoo qoraya malaha waad qanatay nin maqandhan xalay baan shaqaynayay marka qaadiradii habeenka haddaada seexan way kaa muuqanaysaa qaadiradii iga muuqato marka kolley waxaan ka adkaysan waayay un baan ugu soo galay waxaan u malaynayaa abaskuul isku meel lama joogto warna iskuma seeganay dhihi jireen inaan xumaan ka wada abaskuul baa laakiin maamaa baa ku baxday dee waxaynu isla ogeyn waddankaana dhibkii soo maray intaad weydaan jeel qax iyo barakicin waddankaana ka socon jirtay dhibaatada waxay ka jirtaa shaksi walba oo inoo yimaada mustafa xuseenow miyaan ku baloogaa mise languageka somalis waa deynaysaa waan ku baloogaya aniga way dhib yarta gacantayda
cudur waxaa kugu dhacay ogaadeen la yidhahda laakiin kaa waad u dhimanaysaan fair show 100% saa saddexda waddan ee dariska kula aba iyagaa degan marka nafta unbaa kaa bixi cuqdad unbaad u dhiman qofku hadduu qabiil cuqdad ka qaado wuu dhimanaya isaga lafiisa u dhimanaya marka waxaad ku qoraysa meesha laakiin aniga ilama iman kartid nin walba oo yimaado dhibaato la yimaadaa waxaynu isla ogayn cabdi ilay iyo dadka soo xidhxidhay waxaan maanta rabaa inaan idiin sheego 8 nin oo 1 iyo 2 iyo 1 iyo 3 kala tirsada oo hal qoys ka soo jeeda baa dadkii daraad la xidhay ku jiray dadkaasoo cabdi ilay maalmihii uu tagayay dadkii gabadhii Tayseer ahaa jifadeed ahaa haddaan sii magac dhawo ina cali shooca qoyskoodii oo reer cabdilafiixiye ahaa weeyaan laba qof waa reer cabdilafiixiye jahaal cabdilafiixiye iyo xaaji sool wiil uu dhalo ina cabdilafiixiye ah labadaas kala dhalay cabdile markii ugu dambeysay ee uu qabdaare ee gabadhii Tayseer ahaa la dilay dadkii uu xidhay ama ina cali shooca daraadii loo xidhay jaalka galay bay ahaayeen dadkaas cabdile wuxuu xidhayay inay diidan yihiin isaga maamulkiisa inay diidan yihiin dulmiga inay ka dhidheeyaan waxa xun intaas cabdi u xidhay riisan kale oo ay sameeyeen ma jirin waana isla ogeyn 9 qof oo reer cabdilafiixiye aba jeelka ku jiray oo markii dambe dhalinyaradii qaarkood la siday laakiin odayaashii ay muddo ku jireen dadkii jeelka ku jiray maalinkii gabadha Tayseer la dilay dhalaasi iyo mudaaradka ka dhacay qabdaare dadkii jeelka la xidhay ee gabadha daraadeed loo xidhay inqilaabkii qabdaare ka dhacay ee cabdi ilay laga soo horjeeday yay labadan wiil hadda xidhan ku jiraan waxaa la yaab leh oo anigu arrintan la yaabanahay waxaa weeye cabdirashiid cali shooca markii reerkooda la xidhay ee jeelka lagu guray berigii hore cabdi ilay uu joogay markii la yidhi dadkiina nu sii daynaynaa ee jeelka naga dacayda wuu diiday waa bointi rag sameeyo ninku go'aan inuu leeyahay waa fiican tahay taa waa iska caadi waxaa nasiib darro maanta wuxuu joogaa cabdirashiid cali shooca madaxtooyada filasoo deegaanku joogaa jigjiga madaxtooyada jigjiga Mustafa Cagjar buuna la taliyo yahay xogta aan helayo laba wiil oo cabdi ilay maalinkii ugu dambeysay isaga qoyskooda reer cabdilafiixiye ah rag ay ku jiraan oo xaafadda qoyska hoose ee jifada uu ka soo jeeda 8 ka mid ah inta anigu aan aqaan waa 8 laakiin way ka badan yihiin baa lagu yiri baajeelka ku jira wuxuu la qaylahayaa oo la jooga Mustafa Cagjar wiilashoodina jeelka ku jiraan riisa lagu xidhayna ma jiro waxay u xidhmeen oo kaliya in ay taageersan yihiin oo nalaf ay soo dhaweynayaan fikirkooda laba dhibaato oo laba halis baa arrinta ku jirta aniga inta aan aqaano ragga aan garanhayo ee ku jira ee aan weligii siyaasad wax la yiraahdo gelin ee iska joogay horta su'aal waa inaan isweydiino Mustafa qorshaha oo hadda wada waxa weeye intii banaanka jirtay ee qoriga wada inta aan baawan lafo laakiin oo lafkeena ma jirto cidii kale oo caalamka oo lagu arko waxa weeye waa cid jaajuusiina oo heega ah oo ku dhuumanaysa heega aynu gallo heega maxay ahayd goorma la asaasay bal heega aynu ka wada hadlo ha jigjiga ku xidhan yihiin qab jigjiga lagu xidhay walaalay maalinka dhaweyda cadaan uu jigjiga ka soo dagahayay baa la qabtay dadka oo caalamka oo lafiyo wato soo dhaweynaya baa la qabtay bal heega horta taariikhdeeda aan gallo heega waxa la asaasay maalmihii ugu dambeysay cabdi ilay uu tagayay 3 bilood ama 4 bilood 3 bilood ugu dambeysay tagitaankiisa heega la asaasay wuxuuna u asaasay inay noqdaan dad media ka hadla oo saxaafadda ka hadla oo lacag uu siiyo wiilal yar oo dhalinyaro ah bayna ahayn dad waaweyn ba kuma jirin dadka hadda xirxiran odayaal bay u badan yihiin rag aniga iga waaweyn rag odayaal ah bay u xubadan yihiin heego waxay ahaayeen dhalinyaro cabdi uu yiri saxaafadda igala hadla laba group bay isugu jireen qola waxay ahayd qola la khasbahayay oo khasab sidan ku sameeyay la yiri qolana waxay ahayd
qolo shilin ba la siiyey qolana waxay ahayd qolo cabsanaysa saddexda qolo isugu jireen okay markii hore ee dulmidiid iyo Faysal ina cagjar iyo ay sii tagayeen Addis Ababa ay sii galahayeen waxay islahaayeen ONLF ma soo imanayso xukunka idinka qabsanaya cid aad doontaan baad leenaysaan dadka magacaad ku laan doontaana wuxuu noqonayaa magaca ONLF arrintaas way isbedeshay game baa dhacay oo ONLF waxay go'aansatay inaynan si aana arrintaas ayna u dhicin markay ogaatay xaqiiqada meesha taala inay gudaha gasho xabajoojinayada kaliya ka timid oo Ethiopia ka iman ba ku dhawaaqday xabajoojinta ONLF ay ku dhawaaqday waxay dhabarka ka jabisay oo hadda digri ay wareejisay siyaasadda gobolka u lahaa qalbi dhagax kama hadlayna qalbi dhagax Soomaalidan haduu tagay waa shakhsi wuxuu doon u sameyn karaa anu qalbi dhagax kama hadlay waa nin nafti hore oo halgamaa hore ogaaday marka nin baa soo qaray qalbi dhagax wuxuu isu dhiibay gabadh baa soo dhoqolaysaa qalbi dhagax wuxuu isu dhiibay anu Soomaaliland ma aqaan Idoorland saddexda nooc bay isugu jireen nimanka la yiraahdo heego dadkaas boqolkiiba 95 waxay ahaayeen dad taageersan ONLF laakiin Cabdi Ilay uu khasbayay because Cabdi Ilay waxa sameeyay haduu ku yiraahdo oo aad diido isagu dhib buu dadka u geysan jiray laba khatar baa arrinta ku jirta kow waa shaati la isugu gabanayo ONLF maadaama oo kayska lagu leenayo ONLF meesha uu ka baxay waa kays dadka lagu leenayo oo dhiigiisa lagu xalaalsanayo heego waana la sameeyay waxaana ka shaqeeyay arrintan tada oo wata waa ninka la yiraahdo Mustafa Cagjar ee ka deegaanka madaxweynaha ka isaga wata because khudbadii disibaynu ka dhageysanay dad waxa jira calanka ONLF ku milmay oo macnaha saama heeg aynu dib u laabano Mustafa ONLF culbulaha oo ma shar garanaysan si wuxuu jiraan Mustafa ONLF culbulaha intuuna madaxweynaha noqonin waxaan u faahsanahay hadda tadana inuu col leeyahay anigu shakhsiyan laakiin siyaasadii ay kaliftay maadaama dadkii ONLF yahay because population-ka wadanka jooga boqolkiiba 95 dadku waa ONLF wuu luskaraynaya dadka si uuna u luskaraynin career siyaasadeedka uu leeyahayna ay ugu hirgasho waa inuu ONLF waxa ay rabto uu yeelo ONLF waan idin la shaqeynaya sidan aan yeelahaya waa qowda maqashii waxna qaban ilka hadlayso cadeeyo anu saasana amsana shakhsiyan because anu hadii aan ku naco ama shakhsi aan naco oo wax colaadna dhaxmarto oo la coloobo way adag tahay sida aan shakhsigaas u dhaxgalay oo aan ugu calfiyo wada iskala taga tahay laakiin ma madaxweynaha laga dhigo ONLF waan la shaqeynaya afka waxaad ka tiraahday SLK waxa ku jira way kala duwan yihiin ma amsana anu ONLF la shaqeynayo waxyaalaha uu dadka ku soo jiidanayo ONLF tan uu geesta ka tusayo waa geesteeda laakiin waxaan aaminsanahay khatar siyaasadeed oo uu qaba isagu khatar siyaasadeed oo uu ku ladhahayo isaga wax insaadka kaga jira in uu keenayo baan ugu aamsanahay oo ay tahay waxa uu wado because example baan idin siinaya calankii ONLF dadka lagu waarsanaya ONLF taageeraya calankeedana dadkan ku qabanaya miskeenaysa isqabadsiyeedin ku balorta misqabanaysa haddii uu Mustafa ONLF yahay dadkiina waa ONLF baad soo qoraysaan hadduu Mustafa ONLF yahay calanka ONLF muxuu dadka ugu qabanaya sheega waa heega loo leeyahay wiilasha la qabtay maxay sameeyeen waxay sameeyeen calankay soo qaateen cadaan iyo yurmoogi iyo waftidii ONLF ay imanaysa inay soo dhaweeyaan bay damceen there's no another reason oo lagu haysto qofka calanka ku xidhiidhaya ONLF marka wuxuu taageerayaa ma ONLF uu support gareynaya ONLF is going to help with that arrinta uu sameeynayo ma caawinaysa hana jigjigawi meesha doonaysa baa joogto ONLF way jirtaa adana marxaati ka inay kuwa gudaha jooga raamaha leh la kulmaya dadka miyad madam baad miyad dhalaada ONLF dibadda joogto mooyo ONLF gudaha joogto marka timaha halkaan wiilasha ay joogaan raamaha leh laga ducaysanayay sida loo soo kabcadii loo soo dhunkanayay caruurtii iyo shacbiga reer ogaadaya ay ku milmeen xagee ka yimaadeen
sheemayu baan ku leeyahay waxaad qorayso nin gadh weynna waa tahay oo jigjigaagu iyo waxa la baxay sheemayu baan ku leeyahay okay calanka ONLF wiilashu waxay sameeyeen in ay yimaadeen oo caddaan ay soo dhaweeyeen that means caddaan baa lagu ugaadhsanayaa ONLF calankeeda lagu ugaadhsanayaa afkiisa madaxweynaha waxaynu ka maqalay ONLF dad ku milmay baa jiro oo calankooda wata u fiirsada hadda shacbiga reer ogaadaya ma wiilasha raamaha la kaliya ahaayeen maya ee ONLFta maya yaa ONLF aha 84% iyo doorashadii ugu horreysay ku guuleysatay xaggee aadeen dadkii soo dadkii waddanka ma joogaan miyay dhammaadeen soo dadkii sida uma taageersana jabaddu see u dhisnay waxaa la rabaa dadkii sii joogay gudaha in la dhaho ONLF ma aha oo qofkii calanka qaata la xidho oo taarget laga dhigto taasuna waxa weeye waa dagaal cadan u saaraamsanahay waa dagaal cad oo lagula jiro ururka waana dagaal cad oo lagu aarsanhayo oo qabiilo lagula dirirahayo oo dadka discrimination lagu badahayo oo dadka lagu kala dilahayo labada riisa baan ugu fahmi karaa mid walba shakhsi baan ahay laakiin aqligaygu wuxuu isiin hayaa wayna dhici kartaa labadooda inay jiraan because madaxweynuhu markuu soo fadhiista wuxuu ka hadlaa sidana la yeelay dad baa qabiilo magacood hantidii dadweynaha ku dhacay dad baa jaamacada ku dhistay dad baa eeriboorro ku dhistay eeriboorradu xaggay ku yaalaan deegaanka dhan hal eeriboor baa laga dhisay waa qabdaare jaamacada la dhisayna mid baa laga dhisay waa qabdaare hantidii dadweynaha daad miinas cabdi ilay baa reerkoodii u dhisay miya saamiya madaxweyne markaad sidaa leedahay dee cabdi ilay wuxuu reerka gaadhsiiyeyna ma ka fikirtay mana ogta okay ninka la yidhaahdo xamuud ayaan lama ku soo qabtaa xamuud ayaan lama ku soo qabanaya isug ninkan aan qabanaya isug xamuud qabso xamuud ayaan loo qabso maxaad ura jigda garaynaysa haddaad nin tahay waadiga qoraalka soo qorqorahaye xiniya mali maad soo qabsatid min raga haddaad tahay madafkaaga isku difaacid waxaad qoraysa meesha ku qorayso behind the wheel miyaa daa intaad iska qabataad xagga shaka mari miyaa waxaad soo qorayso waan arkaashaan kala socda intaan hadlayo dhan waan fiilaya qoraalkiina language aad isticmaalayso kartidaad halka wax ugu soo qorayso intaad soo timaado waa inaad ragga kula doodaniyo oo waxaad ka hadlaysa aad meel u yeesho haddaadan saa yeeli karin reernimadaadu waa haaf weeye waad badh baa tahay kuwa hurdaa meesha waxay soo qorayaan ubo waaba laga ducaysanayaa soo tan laysku wada baryahaya maaha aan ka ducaystada lahaya nin walba ubo noqday dadkii oo dhan ba ONLF u noqday laa ilaha illa allah war dadka qaar baa akhira ku jira marka wuxuu ii soo qorayay ninkaas waan idiin sheego wuxuu ii soo qorayay ninkaa weyn magaciisa aan sheegayso reer cabdille u dhisay jaamacad okay blog baa tahay marka haddaad xiniyahaaga inaad ku iman weyday blog baan ku saaraya anaa aqaan adoo kale sida loo galo reer cabdille jaamacad u dhisay get lost ka tagadan inaad daawato adigu uma baanide tag meesha la aad waxaad cabdillihi isaaq iyo waxaad sheegayso okay anigu waxaan ka hadlayaa waxa aan arko cabdi ilay markii uu joogay ma ka hadli jiray haa qaladka uu sameeyey ma ka hadli jiray haa dadka uu leynaya ma ka hadli jiray haa maxaa diidayaa mustafa cagjarnaan ka hadalno dad baan u jeednaa marka adeer anagu qabiilna waan ka gudubnay qabiilna kama hadalno shacbi reer ogaadaya anuufta cunayga ku jirta waa taalniqaa inaan kala xigsanin laakiin waxaan ku kala xigsadaa ninkii siyaasi ah ee dadka khalad ka gala bannaankaa soo dhigaya adeer aabbayaad u dhalay arrintaasu haddaynu ku anficin meel ku anfacda u kac taasaan ugu taagnahay dadkan dulman ee masaakiinta ee maalin walba jeelka lagu gurahayo ee kii yimaadaba shilamayntu xagga ka ursada xaggana ka xidhxidhaayo that's what I'm talking about arrintan ka hadlaya waa middaa waan baloogay wuxuu dooni ba ha ahaado aniga ninkii af soomaali xuma la yimaado waan baloogaya malacag buu igu fadhiyaa hukeed
marka waxa weeye dadka uu xidhxidhay waxaa jirtay anugu kama hadlahayo anugu ree hebel weeye ma dhahayo ree hebel buu reedsanayaana ma dhahayo laakiin waxaa jirta siyaasad ku ladhan oo niman dulmidiin la yidhaahdo oo aynu isloogay waxay ahaayeen aynu ognahay oo haddantada jigjigaha nalooga guura leh oo isaga laftirkiisa wuxuu lahaa heega oonalaf ku dhex milantay isaga ku dhex milmay example baan idin siin hayaa telefishinka waxaa laga soo daynaya dulmidiin boqolkiiba 85 ururka dadku uu taageersan yahay boqolkiiba 85 dadku ururka uu taageersan yahay oonalaf shirarkeeda telefishinka deegaanku ma soo daynayo dhinaca janna wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay oonalaf waan taageersanahay fikirkoodana waan ku raacsanahay dulmidiin buu soo daynaya oo iyagu fikirkooda uu taageersan yahay oo ku dhex milmay ururkii qaranka ee shacbiga matalahaya soddonka sano dagaalamahayeen informationkooda ma soo daynaya that means maxay tahay dagaal cad miyaan ahayn media markaad ka soo dayn weydo wiilal yar yar oo sakaraada hunguri u tagay meesha markaad ka soo dayso iyagii waxay ku dhaheen iyo dadkii ay heegaha lagu weersada dheheen aad ku weersanayso sheemayu baan ku leeyahay madaxweynena ma tiidniyo nothing baa tahay niyo giraaleha dadka bidaarta leh jigjigaan jooga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilah wallaahi billaahi tullaahi wallaahi iyo hadalkaaga soo haya nimayo cabdi inay wuxuu ahaa nin gaangisare ninkuu doonana dila ninkuu doonana daayo anugu sidaydaba laba waan aqaanaa ninku inuu wax dil iyo wax dayn leeyahay labada waan aqaanaa laakiin qofka munaafiq ma taqaanaa munaafiqu waxaa weeye qofka afkana wax kaaga sheega inside kana ka buka diiniyanna maxaa la yidhi waa inkaaran yahay qur-aanku aad buu uga hadlay arrintaa qofka khaa'inka ah in allaha khaa'inatu lacyuni wama tukfi suduur yaclamu sirra waaqfa ilaahay caloosha waxa ku jiray afka waa labadaba isagaa ku abuurtay isagaa laakiin annaga waxbaad noo sheegaysaa waxaad noo sheegaysa iyo waxa adugu ficiladaaduna way kala duwan yihiin waxa inside kaaga jira iyo waxa ay tahay way kala duwan tahay cabdina isagu maba qarsan jirinba munaafiq qofku dilaayo wuu dili jiray taa laguma wada hadli jirin caawa hadduu ku socdo qof inuu dilo subaxii waa maqnaan jiray subaxii qof inuu wax tara hadduu dabcana waa tari jiray markhaati way taasu leedahay ilaan ibraahimay waad baxaysaa gabadh sidaa wacdintaa annagu ma jecline inaadan meelo ku noo kaadhaanto oratag subxaanaka yaa cadiime waxbaa urahayada ahayn gabadh saa waadashay reerahanaga weligeed laguma arag annagu waan xishoonaay oon iska taginaadaan meelo laga caytama hadday reerihiina ahaayeen orad ninka la yidhaahdo cabdirasaaqow languagekaaga hagaaji korbax meesha laga hadlay meesha ka hadlayso kala duwan tahay marka waxaa weeye mustafe wuxuu ku dhex milmay niman dulmidiid la yidhaahdo oo ku dhex milmay oo uu ku fogaaday naca xaafaddu ay ku fogaatay jigjiga dadka ha laga caydhiyo jigjiga dadka ha lagu laayo jigjiga gabdhaha ha lagu kufsado nimankii la taagnaa haddana la taagan wey taariikhda intaan ku noolaa qofka bini aadamka ah dhaqankaaga iyo ficilada aad samaynayso waxa lagu barto inuu wuxuu noqdo ma fiicna waxaa fiican imaajka bini aadamku uu ka haysto inuu fiican yahay hebel ha la laayo iyo gabadh ha la kufsada inaad la soo taagan tahay iyo waxyaalo kaloo anu waana afkayga marin karin ilaa dhaqan baa lagu soo koriyey inuu qofku la taagan yahay oo media la soo fadhiisto dee qofka laba jeer lama abuuro waxaadna ogaataan adigu inaad edab daraato oo dhaqan xun la timaado waxaad caayaysaa waalidka ku soo barbaariyay adiga ku dhalay okay samira imku soo qabta samira soo qabsaad samira qabso waxaad halkaa ku soo qortay aad sheegtid bal dadkaad u sheegtid samira qabso hay saasaan arki jiray luuqa inta soo wada galaan reject hadheen markaa soo qabtana qofka halkaa wax ku soo qoray caytaba hayo waan ku soo qabanay bal istifaac bal waxaad ku hadlaysay istifaac
laakiin anigu uma baani kuwa kale Idoorland iyo kuwa meelaha cuqdada qaba ee shirkadooda uma baani markii laga hadlaba la soo boodayo dhul baan wadan ku leeyahay la soo boodayaan moogta kalsooni bayna qabin waxay og yihiin in dhulka daaqsin ku yimaadeen marka waxayna og yihiin haddii nabad u dhacdo inay ka tag wadanka taas waa hal shakhsi oo Idoorland ah oo inta soo qabata ka hadlahayo waxa laga hadlayo topic ma laha anigu dhulka u balaana madagayr safari u kaga bilaabay moogta dadku dhulka ay degan yihiin way ku kalsoon yihiin mana sheegayaan topic laga hadlayo ka hadal haddaad ka hadli karin oo aad kalsooni u rabtay inaad af dhulku qaatana af dhulku lagu qaatay daaqsintaada iskaga laabo halkiina aad iyadoo bay noqonaysaan annaga axmaara soo kala jeedsan anaa ku tusi doona inaad laabatiyaan kale targetka koowaad ee aan leeyahay resefer inaan ka sifeeyo wey dadna aan burca iyo hargeyso waxba ka bixin kuwa ururiyo khudaarta Soomaaliya ama ay kaaga timaado ama ogaadeen iyada waan ka xidh Soomaaliya aad waliba ku khasbanaato taashan ku tusi doona hadii alla Idoorland albaabkaas ku soo xidhay handaraaq inaad ku baqtido marka fadlan shacbiga xaafadda markaan leeyahay waa maaha hoos maaha waa meeshii kore ee aynu wada ahayn fadlan language-kaad isticmaalaysaan iyo reer hebel baad leedahay aad diidan tahay siyaasadda u bislaada siyaasadda qofka dadkan kada dembi ka gala ciduu dooniba ha ahaadee adiga kuma matelo dhagax buur buuna matelin qabdaaruuna matelin wardheer buuna matelin jigjiguuna matelin jigjiga waa ku milma iyaga uu matela oo diyaar bay u yihiin laakiin kuma matelo qof xun isagoon baa wax lafiisa u raadsanaya adigana ilmaadarrada baa ku horan marka haddii wax laga sheego that means adaa lagu doodahayaaye sayid maadow haye ukaan sayid maad baa soo qabanaya sayid maadow qabso sayid maadow qabso السلام عليكم. عليكم السلام صوركaaga soo saar qabaa dhuumanina soo lama wanaagsana sawirkayga waan sheegnaa lama qariyo sawirkayga muxuu yahay language ku qorayso muxuu yahay ma inaad hadashaa rabtaa mise dhageyso ma get lost idhageyso fucking awlo blog ugu darayso waana qana waxaan oo kale waxa lagu sameeyay يسوي بلوغ أنا قدرك كذا تك نجاتك أنا نضاوته مو من دي نجاب هلينك أوكي وحور بقى أغلى حمديس فيري أغلى حمديس قف كمان تعالى تيجي إلهي قلي يضد مدح إلهي حمد إلهي قلي وحور بقى أنا أسوقفته wuxuu ii soo qorayaa oo meesha igu soo qorayaa cagdheer wuxuu rabaa inuu ila hadlo oo aniga caay aanu soo qabto are you crazy jawaabtaadi soo ma ahayn intaan ku soo qabtay inaan ku dhaw maxaad u caytabaysaa markaad hadal tiraahdan aan kugu qabtaa waa blogga soo saa ma ahayn that's what you deserve arrintaad mudan tahay waa taa ahayd intaan ka raro iid badriyo intaan ka raro yaynu wiriba waxaynu ku wada hadlaynaa Hargeysa Burco anaa ku tusi doono miyaad ka rari kartaa waynu saqana labadeen miyaad ka rari kartaa daaqsinta iskaga iman anu wax maara intaan ka soo jeedo ha idhiib waxaa dooni samee idoor waa go'ay maanta mid kalena waa balooga waa go'ay Idoorland balooga inaan idinku dadaalay ka ballan ninka soo galay Idoor caytama wallahi inaad soo laabanayn عقدته دمعيل ودمال هذا المركز هذا النفس هذا بلوغ اللي قبته والنقص كوكو دغو دموي marka waxaanu ka hadlaynaa anaga iyo xaafadannadii waddankanaga maxaa ka galay albaabkii iyo handaraabka isku soo xidheen ma iska furaan maxaa naga galay ma ka hadlaan meeshooda kuwa ay tabayo reeraha caaya meelaha way joogaan kuwiina war u tagaa noo imanina anaga maxaa naga soo danteen reerihiina u taga kuwa Idoorland waxba ha noo imanaa aniga inaad daawatan uma baahnidinba dhiigga baad ku karay wuxuu leeyahay miyaad garar kartaa intaan ka raro laba jilib fiiri hadda laba jilib raarsaaq jilib yar oo ka sii oo raacay waliba la yiraahdo ka sii ah iyo jilib yar oo reer dalal iyo reer Yusuf oo laba jilib oo yar oo reer Cabdillah iyo jilib yar oo Ibrahima
saddexda jilib xal leeyihiin saddexda jilib ay door oo dhan la dagaalami jiray waddanka saaray markaas wuxuu leeyahay miyaad ka saari kartaa maanta oo awoodo baaray ilaa iyo hawaas aan xaafadanada dadka jooga inaan dagaal geliyo hal ciidan aan haysto wallahi hargeysa qabsan karayna saacad ugu qaadan karin diinta islaamka waa ka baxa waana isla qaanaa ku wadaadinaysa saddex bad markay qaraacdo we know from each other markaas waxaad leedahay afka waad ka hadli taqaanaan hadalka waa taqaanaan aad baad u hadashaan af ishaaraadina waad leedihiin markaad qayshaan waad hadashaan taltaliiniyaal dadka ka qosliyana waad leedihiin sooraan iyo jawaan iyo ragle waad leedihiin fanaaniin badan iyo gabdho dabada lulo oo Soomaaliya kala bar saddex meeloodana waad leedihiin taariikhda kuma ayaydo biyaha iyo haweenkeena isku bedeshana waan ku hayaa taana waan ku hayaa idoorkii inanta weeyaan ninkii loo gabiyay baa tahay kaasa taadar taariikh waxaan leeyahay ayaasidan anaay waxay sheegtaan oo ay ku doodaan taariikhda kale ay sheegtaan balbaan faasiina dhageysta cali dhuux taariikhda inta ku noolaayeen waxay la socdeen gaalo ingiriis bay la socdeen way raran jiray rarka nin ragoo la rarto nin la rartay marninba waa la rari jiray ragooda halka rag uu la galgeelami jiray ingiriis oo quwadda adduunka diyaaradaha uu ku weerarayay Soomaalida kale waxa fadayda ugu badan tahay oo ninkii hogaaminaya Said Maxamed Cabdullaahi Xasan ahayn isloognaay ka yaab kornaan uga baxo inaan ku tufoorto waa masti markaan soo galay inaan Idoorland ku tufo because waxa saqajaanka oo kale dabada laga dhalay oo iyaga ka imanaya saqajaan oo dhan bay leeyihiin waa in lagu tufo weeye qofku saqajaan hadii daaqada laga saaraa rag ilmaadeera ingiriis bay raaceen rayidkii baa la dhahaa ingiriis iyo xaafadan waan ka soo jeedo oo isleeyayo dagaal ka dhaxeeyay ba ingiriis intuu xaafadayda geeri oo dhan iyo xoolihii ka xareeyay iyo xoolaha nasii dhahan markaasuu hala ka siiyay dagaalkii rayidka la yiraahdaa rayidku wuxuu ahaa shacbiga anu waan ka soo jeedo iyaga iyo ingiriiskuna way wada socdeen oo gaalay u xamaalayeen iyadoo sida ay tahay oo dagaalkii lagu kala nastay laakiin xadkooda ay joogaan warigoodba biyaha gabdhaha ku baradeelan jireen bay wardheer u soo arooreen oo kii caldhuxo oo inuu ceelka ay ka cabaan diidanaa gabayga u tiriyay ilmaadeeradii oo xaafadayda taariikhda kale ay sheegtaan ma laba nin oo ilmaadeer haddana gabdha kala qabo oo caldhuux iyo ninkii loo dhashay qabaan bulxan oo isu xiga yaa wada hadlahay maxaa dhex galiyay taariikh bay raadinayaan taariikhda jecel yihiin ingiriis baa la soconay idoor baa la soconay waxa la soconay yuhuud reer shaakh saaq baanay reer bani israa'iil baanay balaayo kolba meel u bood taariikhda kale uu sheegto taariikh kale ma hayo markaas wuxuu rabaa aniga inuu yimaado ila murmo afka nin isku weynaynaya oo wariga doonaya waalidkii la sinay waafiyeen maayo wacadkii ilaa baan maro ka wado ina wardagana annagu taariikhaanu hayna aniga xaafadanada qoyska hoose waliba baliyada harooyinka geelna oo ka cabaayo soo ayay iyagoo tuuga doona yimaadeen maxaa cumar waa kii gagbiyahay kuma goriyay kuma geegsan iyo kuma garoofeeyay iyo kuma intay gaday yihiin duqiya gaadiida iyo goray la mooriyo midkii guga irmaanay intaas oo galshada ceelka iyo gaanka miranaysa warso guuto niman soo waceen gaarka kama meerin afar goor markii la isku ganay gumca baaruuda goba garwaxsatay gudub loo yaacay ma gurguuradkii waa cagdheer galabkii naafay wuxuu golos ka dheer hamiyu guya leekaday gaagaabta habariyo isba guran taqaanaa ma gumburada moodayaan geel iyaga fooy markii rag lahayn cumar deesaa u lahaa ee cagdheer uu gurgurashada bilaabay soo rag u dheer soo reerkiina ma hayn lafaruug indha badane oo raacale ay sameeyeen maana taariikha keenaanu haddaan bilaaba maanta dhan taariikhdii iyo gabaygiinu ma dhammaanayo markaasaad waxaad rabtaa inaad ila mudhanto get lost iska tag Idoorland halkaa intaan ku daayo war xaggeena aan u soo laabanay gadaa waxa dhiigga waa waajib waa la dhibaso qofka muuminka munaafiqa ha dhibaso lama dhihin أنا كنت بابي تضرب مؤمنة كشري هكا أنت هكا قد ورمح أرنتنا نوصل لابنا دت كاس حيران دت كاس نوحا كدم بيا دل مديد با كدم بيا دل مديد با كدم بيا السونا وحكم المي
ONLF haddii shacbigeedii ka maqnaa ay isku milmeen isagu wuxuu ku milmay dulmidiid iyo nicii isaga ku jira oo dadka uu xidhxidhayo idoor haddaan caayaan waxaad moodaysaan inaan cagtarna deynaya aad aaminsanayden miya oga gabadh waxay soo qoraysaa Somaliland waa kuwii soo loo dhaweeyay cagtare maxaad ugu tufaysaa bay tiri marka qalbi dhagax soo dhaweeyay qalbi dhagax iyaga handaraabka ay ku xidhnaayeen siyaasad inay isfurfuraan rabo oo dadkii albaabkii ku xidhnaa nafti qabatay oo wuxuu yimaado u baahan ma qalbi dhagax u baahan iyaga ku dhawaaqay oo anaga ku baahan idahayo oo bariyahay dadka Allah maxaa wax ku dhacay kuwan kada ya Allah ay kaadi wala xaafadii saaka waxay ka dheertay waraad baan idin salaamaya dhalinyaro Soomaaliyeed waa maasantihiin halkaas aan kaga tufay xaafadii madaxweynaheennina wuxuu ku milmay dulmidiid ama isaga dhinac ku jira oo dadka uu ku leenayaa noqoto I don't know laakiin waxaan hubaa oo xaqiiqa dulmidiid inuu la yimid fikirka heego aad baan idin salaamaya waan idin salaamaya waa maasantihiin aniga intaas kay times lost forever so waqtigayga waa iga dhammaaday I'm gonna work